wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Somaliland Mudane Cumar Cabdilaahi Bade oo maanta hor yimid golaha guurtida ee Somaliland ayaa waxa uu sheegay in miisaaniyad sanadeedka loogu dari doono dhaqaale lagula dagaalamo cudurka COVID-19. Wasiir Cumar Cabdilaahi Bade waxa uu tilmaamay in cudurka coronavirus uu weli ka sii jiro dunida, isla markaasina ay wasaaraddiisu la dagaalami doonto inta uu cudurkani ka dhamaanayo dunida. waxaana uu bulshada Somaliland ugu baaqay inay la noolaadaan cudurkani COVID-19 inaynu qorshaha sanadka cusub ee soo socda ay miisaaniyadda aynu qoondada ugu darno xanuunkan la dagaalankiisa wax ka qabashadiisa sababtoo waxa la filayaa xanuunkan ilaa inta la helayo dawo ama la helayo talaal wax lagu qasbanaanaya in la noolaado maadaama uu wareegayo oo dadkii ku dhex jiro waxa kale oo iyadna ugu muhiimsan oo muhiim inaynu mar walba ku celcelinayno in qof walba uu qaato mas'uuliyadiisa qofeed ee la xiriirda wacyiga inuu qaato bulshada inuu wacyi geliyo naftiisana inuu ilaaliyo. dhinaca kalena wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu intaasi ku sii daray dagaalkii kalsha uu dhacay muxuu ahaa tukaraq laga sii qaatay baanu isna aanu ku wareejinay muxuu ahaa khamiis baan jeclaan ku wareejinay. waxa kaloo jira degmada dacarta lafteeda ambulance baan aanu ku wareejinay haddii la yiraahdo berito wala axadda intaas waa ambalansada aanu ilaa aan wareejinay. waxa jira dahabshiil ambalansada ay keentay mid kamid ah laascanood baanu geynay, mid labaadna boorma loogu tala galay, mid saddexaadna burcaanu geynay, midna hargeysa ayaanu reebaynaa. laascanood markaad eegtaan ganacsadaha maxamed jabuutaawi isna hal ambulans buu ayuu iibiyey. burco ambulans kale oo dheeraad ah haystaan oo ganacsade cali gadle wiibshabay uguna haystaan. sidoo kale ceelafayna waxaanu geynay hal ambulans oo cusub oo casri ah oo ay hay'ad muxuu Imaaraati bixisay. markaana ambulans wixina soo galay wixina qorsheysan ma saan loo qaybinay oo nu eegna baahida dalka iyo degmooyinka iyo aanu qiimeynayno. waxaan aaminsanahay baahiyo way jiraan laakiin hadba markay yimaadaan sida loo wadanka la gaarsiiyo oo loo qaybiyo. waxa kaloo jira inta hawshan ku jirnay oo iyadna hadal badanna uu ka jiray xukuumad ahaan waxaynu xanuunkan waxa lagu tala galay in lagu bixiyo lacag inkastoo lacagtaas ay qaybsan tahay 1.5 milyan waxa lagu tala galay caafimaadka qalab baa la soo iibiyey hawl socotiintii kale caafimaadka ayaa lagu isticmaalay. waxa lagu isticmaalay dadkii aynu ku haynay muxuu ahaa dalka dibadiisa ka yimid hoteelada aynu ku karantiinaynay. waxaanu u isticmaalay hawlgalkii booliisku ay ku hawlgalayeen intii uu socday muxuu ahaa xanuunkani ama jaad ha noqoto ama wixii ka duwan dhammaan hawlgallada waxaynu isticmaalanay 1.5 milyan yaanu isticmaalay xisaabteedu oo muxuu ahaa tafaqiitirana gacanta lagu hayaa waana marka loo baahdo waa la idin soo gudbinaya. Cabdi Jabbaar Maxamed Xuseen, Telefishinka Real Hargeysa.